dowladda Itoobiya ayaa bilowday adeeg suurtagelinaya in qofka fariin ahaan loogu soo diri karo natiijada baaritaanka cudurka COVID-19 ama coronavirus. Sida ayaa diyaar noqonaysa 3 saacadood kadib marka qofka la baaro, sida uu sheegay agaasimaha Macadka Caafimaadka Bulshada Itoobiya. Nambarka gaaban ee 8335 ayaa laga soo diri doonaa fariimaha natiijada sida uu sheegay. Dowladda ayaa ilaa iyo haatan fulisay 970,991 oo ah baaritaanka COVID-19 ilaa iyo 55,213 oo ah kiisaska xanuunka ayaa laga soo sheegay Itoobiya, iyadoo 20,283 oo bukaanna ay ka bogsadeen. Waxaa u dhintay sida la sheegay 856 qof. magacaygu waa Suldaan, magacaygu waa Seeraar. isku si ayaanu hadalaa, isku sina waanu libisanaa, isku midna waanu nahay. Anigu waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. warmaahay run miya? waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2,500 oo shilin oo waa bilaash. bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah. caadi ma aha, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2,500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya. Samtel, shirkadda dadweynaha.